madax sarsare oo ka tirsan dalka Mareykanka gaar ahaan golayaasha Congress-ka iyo kan Senate-ka oo ka hadlay arrinta Ogaadeniya isla markaasina mahadcelin iyo ammaan u soo jeediyay macadka daraasaadka arrimaha Afrika ee loo soo gaabiyay HASA mar uu shirkiisii sanadlaha oo arrinta Ogaadeniya ku eegay uu ku qabtay gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka waxaa soo baxaya dhaleecooyin iyo hadallo taagtaaga oo ay u jeedinayaan taliska gacan ku dhiiglaha Addis Ababa wadamada reer galbeedku caradan oo ah mid aan wali si toos ah u soo shacbixin ayaa waxay horseed u tahay sida ay dunidu uga qanacday inuu kaliya taliye Mele Zenawi ka waantoomo xadgudubyada aadanaha ka dhanka ah ee intii xukunka hayaba ku soo hayay qurumaha uu gumaysto gaar ahaan Ogaadeniya haddaba hadallada noocaasi ah ee ku aadan kaliya taliye Mele Zenawi ee ka soo baxaya wadamada reer galbeedka waxaa ka mid ah maray madax dawladda Mareykanka ka tirsan gaar ahaan golayaasha Congress-ka iyo Senate-ka oo hay'adaha dalka Mareykanka ugu awoodda badan ay arrinta Ogaadeniya iyo guud ahaanba Ethiopia ka hadleen waxa ay si aad u lafagureen isla markaasina ay sheegeen in xaaladda Ogaadeniya ka jirta ay tahay mid maantayto aan loo dul qaadan kareynin iyagoo sidoo kalena hambaliyadii ran u diray shirki ka dhacay dalka Mareykanka ee laga hadlayay xaaladda Ogaadeniya shirkaasi oo ahaa mid dabayaaqadii bishii June ee naga tagtay ay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ku qabteen macadka la yiraahdo HASA oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka kaasi oo si qoto dheer u lafaguray mushkiladda Ogaadeniya iyagoo dusha uga tuuray gumaysiga wayaanaha in ay ka mas'uul yihiin ficilada xunxunka ay dadka Ogaadeniya la daba taagan yihiin shirkaasi oo sidoo kalena ahaa mid lagu gorfeeyay xaaladda Ogaadeniya midda aadanaha xaluhelida qadiyada Ogaadeniya iyo dagaalada muddada dheer ka socda Ogaadeniya ayaa waxa uu soo jiitay dareenka wadamo iyo siyaasiyiin badan oo dunida ka mid ah gaar ahaan dawladda Mareykanka oo ay golayaasheedu ka wada munaaqashoodeen sidii xal loogu heli lahaa masiibada Ogaadeniya ka soo socota ee ay wayaanuhu horseedka ka yihiin haddaba 7 xubnood oo madaxda dawladda Mareykanka ka tirsan kuna leh miisaan iyo cod ballaaran ayaa iyagu dareenkooda shirkaasi HASA ka bixiyay iyagoo sheegay inay arrinta Ogaadeniya meel ka istaagi doonaan sidii xal waara oo dhab ah oo cadaalada loogu heli lahaa xubnaha ka hadlay xaaladda Ogaadeniya oo hambaleeyay shirkii oo ururka HASA halkaasi ku qabtay kuna la fuguray arrinta Ogaadeniya waxa kamid ah Congressman Eric Bolson oo ka soo baxa degmada saddexaad ee magaalada Minneapolis Senator Byron Dargon oo isna ka soo baxa North Dakota Senator Amy Klobuchar oo isna Minnesota ka soo baxa Congresswoman Susan David oo Washington DC iyaduna ka soo baxda Congressman Edward Royans oo ka soo baxa California Eli Bomero oo ka soo baxa North Dakota iyo ugu dambeyntii Senator Barbara Boxer oo isna ka soo baxa California dhammaan xubnahani ayaa ku celceliyay in ay muhiim tahay in qadiyada Ogaadeniya loo helo waji hufan gaar ahaan xaaladda aadaminimo ee Ogaadeniya bay dhaheen waa in caalamka iyo dawladda Mareykanku si qoto dheer u eegaan waxayna sheegeen madaxdaasi inay wax ka qaban doonaan xal u helidda Ogaadeniya iyagoo oo dhanka kalena si ballaaran u taageeray shirkii HASA ee xaaladda Ogaadeniya laga hadlayay dabayaaqadii bishii June ee naga tagtay كدغيسا راديو حريو wararka iyo warbixinadii u dambeeyay baalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh راديو حريو codka shacabka Ogaadeniya gabaygii bukaan socod markaan cil galgaaranayo gayiga yaalaha ay markaan go'a u tuurayo gubaabadeydii markaan shacab ka gaarsiiyay ragilgilan kobtaan dhowray iyo dumargadoodaya gaadh bayba gaala u yahiin way u gaardhiiye gacalkayow go'aankii ragiyo ficilkii ka gurye maxuu gabaygu ii tari haddaan layla garan hayne isgargaar silaydiina iyo gaala dabaroorka gun inaad tihiin baan ku garan geed nugaylyahowe gob haddaad tihiin gaaladaad gelilahaydeene ninba gooni iyo meel cidlaa lama gumaadeene
gacalkayow go'aankii rag iyo ficilkii ka guriye maxuu gabaygu i tari haddaan layna garan haynen garaadhiya geel iyo loda goob walbaba daaqi girinoofkan wada gaxsanin gowba laga siinin aakaha goddheer lagu ridin geela lagu raacin warwaayinan gumeednimo hubkaad ciidda gaalisaane haddaad nagu gargaartaan shacbiga lama gumaysteeni anna maanan geydheen sidii argantaal qabaaye gacalkayow go'aankii rag iyo ficilkii ka guriye maxuu gabaygu i tari haddaan layla garan haynen geyigaagii gaalka daga ee gurigii ka qaatay ee guuyadaadii dhaca ee maalkii kugu gaabshay ee geesidaadii jara ee gowrac marinaya ee geeridii aad jeclayd xoog ku guri gaystay ee gacaaladaadii rumaad goni ula jiifto adigana garac kugu daray aduu garbaysaaye gacalkayow go'aankii rag iyo ficilkii ka guriye maxuu gabaygu i tari haddaan layla garan haynen maxuu gabaygu i tari haddaan layla garan haynin gacanqaadka iyo goodiga goor walbaba taagan gibirkeena iyo guuldarrada guudka laga saaray gardariyo gaftaa joogta ee gaaridii noqotay itoobiyo haddaydan ka go'in kama gudbaysaane gacalkayow go'aankii rag iyo ficilkii ka guriye maxuu gabaygu i tari haddaan layla garan haynen ummadan go'aan qaadano gees walba u jeeda oo gaaliya islaan ruux kastaba daba gablaynaysa oo sida geela loo heesayo wadaaga waan raaca isugee ninkii ilaahi dambuu ciilu gaylamiye gubtaanyada waxaa igu noqday gamaha i diiday ee gaydhashada igu wacan sawgada maaho gacallayaal ninkii garan hayow sawgada maahan gagaabtan geediga ahee gondhar laga keenay ee gobolladeenii degta ee looga kala giigay ee gaagurteenniyo nimcadii gacan toglaynaysa iyo shacabkan geeri u bata ee lagu gobaynayo gaajadu dadkeey haysa ee gooman weligiiba gacan dhaafka goortii kastaba loola soo galaayo waa tagamaay diiday aan la geylamiye gardarrada si aan uga baxniyo garab ku taglaynta si ay nooga guuraan kufrigan guudka naga saaran gobannimo si loo qaata oo golka loo dhaliyo guud ahaan shacbigu waa inuu gacanna siiyaye waa inay go'aankan wadnana nagu gargaaraane oo geesiyada jawxayay garaab istaagaane haddii kale godonkaa tihiin kama gudbaysaan dhe hadbase gabaygu geestaan la rabo hayla sii galaye geesiyaasha jawxow waxaan idinku gubaabin gurmadkii dalkeenna tihiin gacallayaalowe gaashaandhigii baa tihiin lagu gamayaaye shacbigu wayna garab taagan yahay goriyo hayaane go'aankeenna guud bay rabaan inaynu gaadhnaaye gamka siiya gaagaabta waa inaad gumaadaane godadkiiyo dhufaysyada ku guba hayga guureene garhka bixiya guulaystayaalow timaha gaydheeya waxay gobi u waydaay waa geesi taaladiise yiryaala fulay kii noqdee geri ka cabsooda gadaal mariya fulahii gabbada haw garaabinaye oo guuraha haddaynina intuu golku dhalanaayo waa inaad godeey iyo afdheer weerar geelisaane kuwa daharegaad gaatin waa inaad garacdaane waa inay gallaadiyo wardheer go'a yidhaahdiine gobolkeeda dhagax buura waa inay ka guuraane waa inaan garbiyo fiiq gallaahon ka gudubnaaye waa inaan jigjiga gaardinoon gaalaab carrownaaye gursumiyo galbeed waa inaan gadh ka qaabanaaye
goon gudaha baabiri galla onka gudubnaaye geediga dambana waa inaan adari gaadhnaaye